Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan haboon daawadayaal kusoo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo waliba Soomaaliya. Qaybtan waxaan ku eegi doonaa talaabooyinka Turkiga uu qaaday iyo waliba sidoo kale waqtigan saameynta xooggan ay ku yeelan karto dagaalka bariga dhexe shidaalka Soomaaliya la qorsheynayay in laga qodo. Maxay tahay fariinta Turkiga waqtigan ka imaaday iyo waliba sidoo kale arrimaha kale ee la xiriira waqtigan in xulufaysi adag oo waliba aad u xooggan culays ku saaraya sidii Turkiga uu ku joojin lahaa qodista shidaalka ee Soomaaliya. Masaxba arrimaha la xiriira in gebi ahaanba saameyn culus oo ku yeeshay dagaalka bariga dhexe qodista shidaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kale maxay ka yiraahdeen dalalka caalamka dagaalka bariga dhexe ka socda sidaas loo taageeray waqtigan Iran dagaalka ay qaadayso ma u muuqda mid markaasi guul weyn ay ka soo hoohin doonto maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin aad u xooggan ay ka dhacday bariga dhexe. Mareykanku waxa uu wada qorshe ahaan madamaca uu ku leeyahay miya inuu gebi ahaanba uga hor istaago in tallaabo uu qaado Turkiga. Xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya sida la helayo waa uu sii xumaanaya oo waliba waxaa muuqata in qorshaha lagu guda jiray in markaas la hirgeliyo dhawaan ay ahayd in diiradda la saaro saldhigyada militariga ee Turkiga uu ka sameysanayo qaybo ka mid ah dalka kani Sanaag and Sool Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ayaa u muuqata waqtan in culays xooggan soo food saaray. Hadaba Turkiga muxuu ku yiri arrintaasi? Qodobadaas iyo waliba wixii kale inagu soo kordhin ku qaadan lagi doona saaxiibayaal idinkana noo cimaamado channelka. Bilis walaal saaxiib subscribe noo saar like runtii email dheer ayayna gaarsiinaysaa inoo like garee muuqaalka mahadsanidin soo dhawaad. Aan ku bilaabay dalalka caalamka maxay ka yiraahdeen dagaalka bariga dhexe ka socda. Saameynta xooggan ee waqtigan ka imaaday iyo talaabooyinka ay qaadayaan dalalka caalamka ayaa u muuqda in mar kale cirka isku sii shareeri karto iyadoo qaybo badan oo ka mid ah Yurub ha u badnaadaan ay si weyn markaasi ugu digayaan talaabooyinka Iran iyo waliba sidoo kale Mareykanku ay ka wadaan xulufaysiga ka dhanka ah ee bariga dhexe. Diyaaradihii dagaalka iyo waliba maraakiibtii ugu cusleed oo mar kale Mareykanku ku daadgureynaya gobolka bariga dhexe iyo waliba xeebaha waaweyn ayaana u muuqda waqtigan in mar kale cirka isku sii shareerido iyadoo saameynteeda guud ahaan ay dareemayaan dalalka caalamka. Dhinaca kale dalalka reer galbeedka ama Yurub ayaana si weyn walaac ugu muujiyay arrinta tani kuna eedeynaya Donald Trump iyo waliba sidoo kale hogaamiyaasha Iran iyo waliba Israel in aanan marnaba ka fiirsanin waxyaabaha ka socda dunida oo ay kaliya ay eegayaan midda iyaga ay hortaalo. waana saameynta ugu xooggan waqtigan dalalka caalamka ama reer Yurub ay si weyn u dareemayaan maadaama dagaalka bariga dhexe saameyn ballaaran uu ku abuurayo iyadoo inta badan la warinayo ay yihiin inay markan dhaqaalihii dalka iyo waliba sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii ganacsiyeed ee guud ahaan dunida oo dhani gebi ahaanba istaageen iyagoona u sababeeyay in ilaa ay haatan wali xaaladda bariga dhexe saameynteedu ay ku yeelatay maraakiibtii shidaalka gacanka cadmeed iyo waliba sidoo kale xeebaha ee dhaadheer isku gooshin jiray waqtigan aysan isdhexmari kareynin. Dhinaca kale Turkiga ayaa markan walaac xooggan ka muujiyay saameynta dagaalka bariga dhexe iyo xiisadda Soomaaliya waqtigan oo u muuqata in saameyn xooggan ay ku yeelatay. Dalkaasi Turkiga ayaana si weyn loogu dareemaya waqtigan in gebi ahaanba howlihii shaqo ee maraakiibta shidaalka qodista ee Soomaaliya culays xooggan ka soo food saaray taasi oo la tilmaamayo waqtigan in Soomaaliya iyo waliba Turkigu ay arrintoodu meel xasaasi ah sii gaari rabto iyadoo qorshe u ahaa in bisha tani ee aynu ku guda jirno markaasi la diyaariyo si markaasi loo qodo shidaalka Soomaaliya ka jira. Ilaa hadda waliba jirto tallaabo uu qaaday Turkiga walow la sheegayo in qorshaha uu yahay bacdul afur ama bacdul soonka kadib taasi oo ilaa hadda wali aanan cadeyn qorshaha ugu muhiimsan ee Turkiga ka yaalo. Laakiin waxaa la warinayaa in dhawaan muddooyinka ugu dambeeyay si weyn ay ugu howlanaayeen dowlatuska military diyaargarowga xuduudda ciidaneed iyo waliba sidoo kale qayb ka ahaanshaha diyaar noqoshaha xiisadda bariga dhexe ka taagan. Turkiga ayaana qayb ka noqonaya dalalka sida weyn markan loo ataagayo ama markaasi loogu sii jeedo. Haddaba wixii macluumaad kale ka soo baxa halkan idinku la wadaagi doonaa saaxiibayaal muuqaalka noo like gareeya share saaxiibayaal mar dheer gaarsiinaysa noo share gareeya sidoo kale subscribe soo dhaamaansanidin.